السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميل كستو adduunka joogtaan magacaygu waa Idris Xasan Maxamed. Page-ka daawansana waa Idris Xasan Page Official. Sidoo kale waxaad nagala socon kartaa qaybta YouTube-ka aan ku leeyahay isla Idris Xasan Page Official. Muuqaalkii si aad loo wada socoteen hooyadii ilmahayga laga qaatay qaybtii koobaad sida aad wada daawateen. Maantana waxaan idin hayaa qaybtii labaad iyo xaggii ay ciyaan ku dambeeyeen. qaybta saddexaadna bidmillaahi kariim waxaan ku xusi doonaa maalin kale ama marka ayaan soo qaadan doonaa. muuqaalka intaanu bilaabin sida caadada noo ahayd laga noo saar page-keena mahadsanid. waxaa ku bilaabaysaa sida tan. ninkii runtii waxa uu jeclaaday ama uu calmaday muddo kadib gabadhan sheeko dheer iyo xasaawo kadib waxa ay go'aansadeen inay isguursadaan labadoodu maadaama ay jacayl isku qaadeen. ninkani runtii waxa uu gabadhan uga sheekeeyay inuu yahay qof wanaagsan ahna nin aana dulmi geysan ama aana dhibaato geysan. runtii gabadhii qalbigeyga ayuu soo jiiday oo waxa uu guursaday gabadhii labaad iyadoo gabadhii ciyaalka u dhashana ay joogto. ninkan sida aan ka wada arkayno runtii gabadhan kulba meel ayuu geeyaa oo dalxiis ah si uu la qaato waqti wanaagsan una tuso jacaylkeeda. kadib waxuu soo kaxeeyey sadeexdi ciyaal oo dhalay oo iyaduna uu ku dhahay sadeexdan ciyaalna anaa dhalay. runtii ninkii xanaaq ayuu bilaabay sidii caadada ahayd oo waxa uu la dagaaltamay gabadhii iyaduna uu marka dhaweyd guursaday uuna u keenay ciyaalkiisa. runtii gabadhii rafaad iyo dagaal kadib waxa ay noqotay gabadhii kalena inuu balgabi ahaanteedba iska furo uu iskaga tago uu yiraahdo waxaan ku siinayaa saddexdaadii dalqadood ee nagu kala wad meesha. runtii ninkii gabadhii labaad iyadana sidaas ayuu ku furay. kadib waxa uu ka fikiray ciyaalkan saddexda ciyaala xagga uu geyn lahaa maadaama xaaskiisii hore ciyaalka u dhashayna uu ciyaalkii ka soo qaatay tii dambena ay kala tegeen. waxa uu ku fikiray bal inuu u geeyo xaaskiisii minweynada ahayd ee markii hore uu isagu qabay oo joogta Itoobiya si uu u geeyo ciyaalkan. runtii fikirkii wuu qaatay oo ciyaalkiisii uu kaxeeyey waxaana u geeyey xaaskiisii hore ee minweynta ahayd oo u haysa aan idhaahdo ciyaal badan iyaduna. maadaama uu ka kaxeeyey Kenya una socdaalay Itoobiya runtii gabadhii uu u geeyey ciyaalka gabadhii kale ee ciyaalka dhashay runtii waraga murugo iyo layaab ayay ku noqotay maadaama ciyaalkeegii ay ilaashan jirtay oo isla joogeen Kenya laga waday Itoobiya loo gudbiyey. runtii fikir ayay qaadatay oo ah bal ninkan inay la hadasho maadaama ciyaalka in badan ay ka sii maqan yihiin. waxayna ku dhahday waxaan rabaa ciyaalkeygii in aan soo booqdo safaaradda raac si aan uga helo fiise in aan labadeenuna aan kala tagnay ciyaalkana ay naga dhaxayaan si aan ciyaalkeygu soo booqdo. runtii ninkii uu ka diiday arrinkii waxayna ku soo gabagabowday maamadii in ay telefoon ciyaalkeyga kula hadasho. runtii gabadha ciyaalka haysay ayaa ku dhahday bil kastaba u soo dir oo dharkooga iyo waxooga iyaduna sidaas ayay biilka iyo wax kastaba ugu diri jirtay hooyadani iyadoo ka fikiraysa ciyaalkeygu marnaba inayna dhibaato arag ayaa waxay go'aansatay inay bil kastaba biil joogta u dirto gabadha minweynta ee ciyaalka u haysa odayga ay kala tageen ee imika ilmaheeda haysa. runtii gabadhani waxay samaysay dadaal aad u badan oo ah inayna ciyaalkeega sinaba ugaga hadhin maadaama ay kala tageen xaajigeegii ciyaalkii ay ilaalin jirtayna laga dheereeyey oo la geeyey waddanka. qaybta labaad waxaan ku saafmeeri doonaa intaa. qaybta saddexaad bidmillaahi kariim waxaan ku soo qaadan doonaa sida ay hooyadii ku dambeysay saddexdeedii ciyaalana ma heshay mise ma helin. sidaas ayaanu kusoo gabagabayn doonaa qaybtan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.